waxaa jira waxyaabo aan si maalinle ah u isticmaalno balse si khaldan u samayno waxaana laga yaabaa inay arrintaasi sababtay annagoon aqoon kooban ka haysan. haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ku eegaynaa waxyaabo aad si khaldan u isticmaasho, sidoo kalena waxaan idinla wadaagi doonaa haddii eebbe idmo sida aad u sixi kartid. haddaba daawasho wanaagsan. marada ay inta badan jilayaasha filmaantu indhaha ku xirtaan sidoo kalena ay aadka u isticmaalaan burcadbadeedku. ma isweydiisay sababta inta badan filmaanta burcadbadeedka ay indhahooda il ka mid ah indhahooda ku xirtaan marada tan, mase mooday inay u xirtaan si looga baqo ama qaab cabsi ah? haddaba waxay marada tanu leedahay shaqo ka duwan midaas, oo ah in marada tanu ka saacido qofka burcadbadeedka ee badda ka shaqaynaya inuu si fiican ugu arko. haddaba marka dambe eed aragto hamoodin in liska xirto marada tan, waxayna kaa saacidaysaa markaad damacsan tahay inaad gashid qol mugdi ah oo iftiinku ku yaryahay. indhaha ku xiro si ishaadu ula qabsato iftiin yarida iyo mugdiga, kadibna saar. waxaa kuu fududaanaysa inaad si fiican wax uga aragto mugdiga ama iftiinka yar. waana sida ay samayn jireen burcaddu inta badan. hadday xogtan kugu cusub tahay sida anigoo aygu ahayd oo kale, xagga hoose nagu soo qor. xargaha naylonka loo yaqaan ee lagu xiro bokisyada, ood markaad damacsan tahay inaad fudho bokiska aad adeegsad mindi si aad u jadho, taas oo laga yaabo inay dhibaato kaa soo gaarto. haddaba waxaan ku hayaa xal ka fudud ood ku badbaadin karto xarigga, sidoo kalena gacmaha kuugu badbaadi karaan, oo ah inaad dib u yar celisid xarigga kadibna aad dhinaca kore ka furtid. waana ku furmayaa adigoon wax mindi ah isticmaalin. xariggana sidoo kale mar kale ayaad isticmaali kadhaa. sow ma jirto mararka qaar marka aad dukaamanaysid inaad weydo space ama boos kugu filan ood alaabta ku ridatid, taasoo laga yaabo inay kugu sababto inaad dhowr jeer soo laabatid oo waqti badan kaaga lumo. haddaba weli ma u fiirsatay birta yar ee ku taalla xagga dambe kursiga carruurta loogu talagalay marka la dugaaminsanayo? waxaana loogu talagalay in alaabta qaarkood la suro, waxayna kaa saacidaysaa marka kale inaysan alaabtu kaa kala lumin. waxaan u malaynayaa in aad marka dambe ee dukaamaysanaysid birtaas u fiirsatid ood isticmaashid. warqadaha lagu qorto xogta muhiimka ah ama ballamaha aad ku leedahay xafiiska. okay, haddaad xafiiska ku isticmaashid warqadan oo kale, sidee ayaad u jeexdaa warqadda marka aad rabto inaad isticmaasho? inta badan dadku waxay dhibaato kala kulmaan in warqadda marka ay soo saarayaan ay marorsanto ama wareegto. arrintaasna waxaad ku xallin kadhaa inaad warqadda marka aad jaraysid si geesgees ah ugu soo saarto sida muuqaalka kaaga muuqata, iyadoo aan isku dhegi doonin. jarjaridda rootiga. marka aad damacdo inaad rooti la soo kariyey aad jartid, waxaad la kulmaysaa dhibaato ah inuu kala daato rootigii ama qayb yar aad jarto maadaama cajiinku isku dhegan yahay. laakiin waxaad samayn kartaa inaad rootiga rogtid ood u jartid qaabka aad doonaysid, maadaama aad xagga dambe roodhigu marka uu rogan yahay aad si fiican u xakamayn kartid. inteena badan markaan wax karinayno sow lama kulanto ama lagama yaabo inaad la kulanto in biyaha aad wax ku karinaysid soo burqamaan iyadoo xumbadu isbuux dhaafiso weelka ama digsiga aan wax ku karinayno, taasoo runtii caqabad nagu ah. haddaba waxaan ku hayaa xal ah. waxaad dul saari kartaa digsiga qaado alwaax ka samaysan, mana laga yaabo in xumbadu dul dhaafto qaadadan, waxayna ku sahlaysaa in aysan biyihii kaaga daadan dabkii ama weelkii aysan kaa wasakhayntan. dharkeenna xilliyada qaybtood soo kuma aragtid dan ama waxyaabo cadcadaan ah oo dul fuula, kuwaas oo ka dhiga dharka quruxdoodu inay yaraato. inteena badan waxyaabo fara badan ayaan isku daynaa inaan isticmaalno, waxaana ka mid ah inaan isticmaalno qalab loogu talagalay kaasoo tirtiraya wasakhda, balse inteena badan ma haysano, mana awoodno inaan qalabkaas soo gadano. qaar naga mid ah waxay isticmaalaan garxiirta, taas oo laga yaabo mararka qaarkood inay dharka jadho. haddaba waxaan idin hayaa xal ka fudud oo ah inaad isticmaasho dhagxaanta lugaha lagu xoqo ood ku xoqid dharka, taasoo si tartiib ah si fiican gankaas kaaga tirtiraysa. haddaba marka dambeed aragtid dhagaxaas ka faa'iidayso. okay, haddaba kaba soo qaad waxaad doonaysaa inaad dhala biyo ah si degdeg ah u qaboojisato. waxa ugu horeeya maskaxdaada kusoo dhacaya waxa weeyaan inaad talaagad ku rido. waxaana laga yaabaa mararka qaarkood in talaagadu dhaladii ka dhigto mid engegan ama baraf fadhiisiso, taas oo laga yaabo xataa inay mararka qaarkood ku dhex jabto talaagadii. haddaba waxaan ku hayaa xal ka fudud oo ah inaad dhalada ama caagadda aad rabto inaad qaboojiso aad ku laabto maro qoyaan ah, kadibna aad dhex dhigto talaagada qaboojisada. muddo yarna waa ay kugu qaboobaysaa iyadoo aysan dhaladii kaa barafoobin kaana jabin. makiinadaha khudaarta
lagu shiito inteena badan marka aan cabitaan ku shiidano waxaa laga yaabaa dhibaato inaan kala kulanno inaan nadiifino birta wareegta ee wax shiida oo laga yaabo mararka qaarkood xataa inay gacmaha naga saran haddaba waxaan ku hayaa xal ka fudud oo ah inaad isticmaasho 2 dhibcood ama 3 dhibcood oo saabuun ah kadibna biyo diiran aad ku shubto xidho aadna daarto makiinadu marka ay wareegto iyada ayaa iskeed isku nadiifinaysa goob kasta oo wasakh kaga jirdhana iskeed ayay u soo saaraysaa wabillahi tawfiiq waad fahantay inteena badan marka aan ku jirno safarada dhaadheer waxaan la kulannaa dhibaato ah inaan daalno oo laga yaabo mararka qaarkood inaan hurdoono mararka qaar waxa laga yaabaa in qofku marka uu hurdoodo uu qof kale isku tiiriyo ama se xagga dhulka u soo foorarsado maadaama gravity soo jiidanayo haddaba waxaa jira basaska caalamiga ama basaska casriga kan cusub waxay leeyihiin maro sida aad ka aragtid muuqaalka maradaas waxaa la sameeyaa hala yaabin hamoodin meesha inay isaga degan tahay waxaad samaynaysaa madaxa ayaad ku dhegsanaysaa sida sawirka kaaga muuqda si aadan u dhicin oo aad hurdo at least raaxo leh u seexatid okay waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena Koryaal waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo joogto ah insha Allah waxaan ka codsanayaa daawada inaad subscribe tiraahdo lana wadaagto asxaabtaada wabillahi tawfiiq